salaanta aad u diyaara cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhaw mudane madax madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa kormeeray qeybaha kala duwan ee xerada tababarka ciidamada ee darar weyne waxaanu madaxweynuhu u kurgalay habsami u socodka kobcinta xirfadda ciidan ee dugsiga tababarka darar weyne inta kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka qayb galay munaasabad ay ku qalin jabinayeen ciidan cusub oo muddo lagu tababarayay carbinta waajibaadka shaqo ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xafladda qalin jabinta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka qaybgalkeeda waxa ku weelinayay wasiirada wasaaradaha gaashaandhigga iyo warfaafinta taliyaasha ciidamada iyo hoggaanka sare ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha dugsiga tababarka darar weyne gaashaanle sare Cabiir Siciid Diiriye taliyaha kuliyadda saraakiisha Abdullaahi Askar gaashaanle sare Xasan Cabdi Yuusuf Xasan Kayse iyo abaandulaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye guuto Axmed Cawaale Yuusuf Libaax ahna kusimaha taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iska daba maray ahmiyadda ay leedahay tababarka ciidamada iyo guulaha ay jamhuuriyadda Soomaaliland ka gaadhay anigoo taliyihii dugsiga tababarka waxaan cadeynayaa in ay ciidanku diyaar u yihiin difaaca qaranka tabadii iyo gudaha ciidankaasu wuxuu qaatay tababarkii jadidnimo ayuu qaatay raggan waa rag u adkaystay dhabarka u dhigay waxay muujiyeen geesinimo bishibileen adkaysi iyo wadaniyad dheeraad wadana madaxweyne waxaan leeyahay kulliyadu maanta kulliyada qaranka ay waxay la mid tahay kulliyadaha adduunyada ay ka la mid tahay kalidayna ma andhasile gacanna waa lagu siiyay waxay ciidanku ku kordhiyeen dhiig waxbarasho isbedel bay sameeyeen waxaan halkan ka cadeynayaa kontaroolladii aanu sameynay iyo aanu ku kontaroolaynay waxbarashada ee hoggaanka tababarka wakiilka nooga ahaa in ciidamada halkan jooga mudane madaxweyne guteen waajibaadkii loogu talagalay waxay muujiyeen inay yihiin dhalin u diyaara difaaca dalkooda wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf Xawar ayaa yiri mudane madaxweyne waxa sharaf ah maanta inaanu halka joogno oo xulayno dufcadan quruxda iyo sharafta iyo hanaanku ka muuqdo ee dhameystay tababarkoodii kulliyadan aynu joogno maanta darar weyne waxaan u maleynayaa nin jilicsan oo dhamay iska haray ragaday bahala ku soo haray halkan kulliyadan iyo tababarkan waxa loo faray rag lagu kala saaro ninkii aan ka baxayn iyo ninkii aan tamartiisu ahayn aan ciidanka u qalmin waa la saaray waana haray intana waa raggii aan isleenahay ciidanka iyo qaranka waxbay tarayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ciidamada qalabka sida ku bogaadiyay dadaalka nafur kale ee ay qarankooda ku horumariyaan had iyo jeerna ay la garab taagan yihiin waxaan hambalyo u dirayaa wasaaradda gaashaandhigga wasiirkeeda taliyaha ciidanka abaandulka iyo hoggaanada oo dhan dhammaan ciidanka qaranka beeru jooga guutooyinkiisa iyo salgiyadiisa saraakiisha saraakiil xigeenka iyo dableydiisa dhammaantood waxaan ku hambalyeeynaa hawsha culus ee ay qaranka u hayaan horta maanta waxaa bilowdeen nolol qiimo iyo qaayre nolol sharaf leh nolol taariikh leh oo qof waliba aanu heli karin waxaan idin rajaynayaa in intiina badan aad soo gaadhaan dhammaantiin insha allah wixii ilaahay u daayo kuliyadda saraakiisha saraakiil xigeenka in badanna ay soo gaadho leyli sarkaan in badanna ay gaadho abaandulka inta habena ay gaadho akaadimada hogaaminta leadershipka oo iyana halka laga dhisi doono waqti uu ku xigi doonto tan haddii ilaahay idhaahdo waxaan bogaadinayaa saraakiisha u dhowr adeegay ee duruufahan ku abuuray kuliyadaha kala duwan saraakiisha daa walba leh ee laga yaabo noloshooda intay noolaan 50 sano 6 sano inay qaranka daafacayeen jabhadnimo ciidan hore dagaalo ka sii horeeyay kuwa intaaba daafac qaran oo laga yaabo badankooda loo dhaawac yihiin hawsha inta allah ee ciidamadu qabtaan dagaalka kula ma dalka waa daafacaysa horumarta dalkiina
markaa ciidanku halku jooga waa wax ka qabtaa xooggiisa aanu la fadhiyin wax ku soo saara wadda dhisiya ceel qodiya dad u gurmaya tabaaraysan haddii alla beera qodiya xoogga ciidanku waa inaanu bilaash u fadhiin geed hoostii oo wax qabtaa meesha ay joogtaan marka waxa laga doonayaa dadka dhex degay meeshii ay joogaanba inuu noqdo odayga khilaafaadka xalliya ee dhibaatada dadka dhex taala dhameeya ee dadka hoggaan wanaagsan noqda waxaynu ku ammaanaynaa ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland markay fidinayeen maamulkiinta bari iyo galbeed dalka oo dhan inay tusaale fiican oo caalami ka noqdeen sida bulshada loo qanciyo iyo sida dadka loo soo wada hogaaminta oo aanay maxabad iyo wareer la tagin ay hogaamin fiican fuliyeen ay taariikhdu qoraysaa ku ammaanaynaa madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa yiri dagaalka waxa galaan in bayb iska cabayo oo warigi dagaal arag oo dhibo soo marin oo kursiga qalan isku ruxaya ay baa hal dagaal ku aswar soo qadalseen anagu way arag baan dagaal ku socda waa ka daalana xadka daafacay ninka warmooga ee dagaalka ku akhriya soo qoranayo adaa cirka roobku anagu soo duulmay taan nabad ka doonaynaa xadkeena waa daafacayna ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay helaan tababaro kala duwan oo kor loogu qaadayo aqoontooda tayadooda si ay uga soo dhalaalaan waajibaadka dastuuriga ah ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku difaacayaan Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta tababarka ciidamada ee Darar Weyne